ururka dhalinyarada Samakaab waxaa la aasaasay 18 Oktoobar 2016 waana dhalinyaro isu bahaysatay sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadka iyo deegaanada ay ka soo jeedaan ee ku yaala gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. ururka dhalinyarada Samakaab waxa ay leeyihiin shuruuc u gaar ah taasi oo ay ku hagaan qorshahooda waxqabad. ururka waxa uu leeyahay laba gole oo kala ah golaha dhexe iyo golaha fulinta. labada gudoomiye ee labada gole waa ay kala madax bannaan yihiin, mid walibana waxa uu qabtaa shaqadii loogu talagalay. ururka sidoo kale waxa uu leeyahay xoghaye guud, xubno isugu jira afhayeen, madaxa maaliyadda, madaxa arrimaha bulshada iyo dhalinyarada, iyo madaxa xiriirka caalamiga ah. ururka ayaa markii la aasaasay durbadiiba waxa uu bilaabay gurmad degdeg ah oo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, halkaasi oo aysan jirin cid war iyo wacaad u haysa, balse ay ka jirtay abaar aad u baahsan. ururka samafalka ee Samakaab ayaa durbadiiba bilaabay olole ay lacago uga ururinayaan dhalinyarada isku bahaysatay Samakaab, waxa ayna durbadiiba awood u yeesheen in ay gaaraan deegaanada ay abaaruhu ka jiraan si ay deeq u gaarsiiyaan halkaasi. gudoomiyaha golaha fulinta Dr. Mahdi Maxamuud Geelle Qudus iyo wakiilada Samakaab ee gobolada dhexe ayaa markii ugu horeysay biyo qaybin ka sameeyay deegaano hoostaga degmooyinka Dhuusamareeb, Matabaan iyo Gurceel, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dad ay abaaruhu halakeeyeen. ka gadaal markii dhalinyarada Samakaab ay gaareen gobolada dhexe ee dalka oo aysan jirin cid samafal halkaasi u tagta ayaa durbadiiba waxa bilowday dad badan in ay maraan wadadii ay faleen ururka Samakaab.
dad badan ayaa durbadiiba maray wadadii ay faleen ururka samakaab waxaana durbadiiba goboladaasi gaaray lacaga ay iska soo ururiyeen jaalidaha ka soo jeeda gobolada mudug galgaduud iyo hiiraan walow xaalada abaar ee halkaasi ka jirta aysan ku filayn gurmadka haatan gaaray. dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay ee March ayaa mar kale ururka samakaab iyo ururka dhaqaatiirta galmudug medical forum oo iskaashanaya ay deeq isugu jirta biyo raashin iyo dawo gaarsiiyeen goboladaasi. raashinka ay qaybinayeen labada urur ee isbiirsatay ayaa waxaa ka faa'iideystay 500 oo qoys oo kala degan 33 tuulo. sidoo kale dhanka caafimaadka ayaa waxaa ka faa'iideystay 100 qofood oo isugu jirta caruur, haween iyo dad da' kuwaasi oo ku dhibaateysnaa deegaanadaasi. sidoo kalena ururka samakaab ayaa deeq lacag gaarsiiyay deegaanka ari cadeeye iyo deegaano hoostaga ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo abaaro baani ay ka jiraan. ugu dambeyntii ururka samakaab oo ah urur dhalinyaro isbiirsatay ayaa waxa uu ka madax banaan yahay siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalka Soomaaliya waana urur ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxyaabaha uu ururka sida gaarka ah diiradda u saarayo ayaa waxaa ka mid ah caafimaadka, waxbarashada, taakulaynta dadka taagta yar